السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا مشان نجلس ساعتين وبدان ميديا برنامج كنا وبرنامج كي إلى تالي أسبوع كسر مالون نجلس ساعتين. ما تلا برنامج كواحدين دهينا يعني وقال عبد محمد مشان حفر يا أحمد شيخ محمد وأهل برنامج ضد ما ترى سودي في النقلة تلها برنامج ما وح قص سودي في قبل لها يو فاضل حسين محمد oo dibkeeda nala wadaagayso kuna nool magaalada Muqdisho gabadhaas isagayso waxay jeclaatay waxay jecel wadaagaysay wiil dhahayo Ali Xasan wiilkaas oo asagana reer Muqdisho leh sida sheegtay wiilkaas waxay ballan ku gaareen inay saraasun doonaan oo arooskooda mar loo doono bas ballanti kadib waxaa dhacday maalin inay wiilka gabadha suuq kulmaan meel suuqa soo kaadaynayo oo isku diyaarinayo aroos gabadha ayaa markay aragtay wiilkan wasaaranaya ku farxday laakiin farxaddeeda ma uusan noqonin waxay weydiisay aroosku isku diyaarinayo inuu arooskeeda yahay iyo alaabtan uu gadanayo gurigan sharaxadiisa waxaa dhacday wiilka inuu ka dhaadhiciyay gabadhan inay arooskan isku diyaarinayo inuu arooskeeda yahay oo gabadhkan uu jecel yahay oo asagan uu ka qarinayo xariir uu la wadaagayo laakiin uu usoo bandhigay inuu aroosanayo oo hadda aroos maanta uu qabanqaabinayo uu yahay aroos gabar kale gabadha ayaa waxay la noqotay arrinta la yaab waxayna damcday inay nala soo wadaagto anigu ayaa barnaamijkan nala soo wadaagto ila tali camal inay fikraddeena saliimka aragto iyo qaabkan maanta u waanin lahayn maantana waanada waxaa usoo jeedinaya mise aan jecelnahay inuu wax fiican u sheego gabadha ay ku dhaqaaqi doonto walaalkii maxamed axmed sheekh maxamed oo gabadha talo fiican siin doono sidii horaan buu dadka ula talin jiray axmed sheekh maxamed kusoo dhawo barnaamijka gabadha wax fiican u sheegayso waan walaal waan ka mahadcelinayaa sida wanaagsan inaha barnaamijkan usoo jeediyay janaalka bidaan media walaashida Faadimo ani waxa kula talin lahaa anigoo ku hadlayo dadka Soomaaliya waxa la Faadimo horta waa maasantahay sida wanaagsan inaha aad ugu soo dhigtay fikradaada saliimka waan ka mahadcelinaa mar boqolaadba Faadimo ani waxa dhihi lahaa aragtidayga kolba waxa tahay gabar Soomaali waxa jeclaatan wiil Soomaali horta ma ahayn in wiilkaas sidaas sameeyo laakiin way dhacday haddii inaha uusan jacaylka uu ku qabo mid heer galis u sahan ma ahan in ina aad sii doordan ina dhacdo wiilkaas waan jeclahay ana waxa dhihi lahaa fikradeyda iskiilow mid wiil kale Soomaali ah oo ka fiican baadhaysa oo barnaamij ilaa ka tagaynin daacadda mungunus marka qaado gabadha waxay lahayd sintan marka maxaad nafta darnaa maanta u sheegay sababtoo maanta ruuxan ku jeclaan oo farxad keenin ina si doordo ma sababtoo rabbi laadin ka farxadiisa uu garanay meesha ku jirto maanta hadii inta isku ku dhahay gabar kale jecelahay oo maanta xaskiisa wada diyaar waxay noqoto waa ka qalaysan hadii uu shalay guursan lahayn adoo ilmo dhashay oo meel cid kaga dilaa marka ana waxay gudbon hadda runta ayadoo meel fiican hadda meel fiican ka tagay waa meesha uu qiimaneed inkastoo laakiin horan inuu si sheegay fadhido xiriirkan buulada uu sumay marka la daba ilaa isku wada galan meeshaas baan oga haynaa marka daawadayaal waxaad nagala socon kartaan waxaan nagala soconaysaan bidaan media oo barnaamijka ila tali oo maalin kasta oo sabti aan kasoo sidaano ruuxii u dhib haysto oo maanta rabin la taliyana waxaa dhibkiisa inuu reebi karaa meesha commentiga comment oo bun la soo qornaa commentiga insha Allah umarina commentiga soo qortay in laga soo tagay misli doono amal commentation badan dhibkada ha qarsan wixii aan ku wada karno walaaltinimo iyo safar hal ku sheegana haddii ina aan ku ajigulnina ay loo inaad subscribe gareyso aan share gareyso comment-ina diwaan yusina intaan barnaamij kale qolku madaxnimada sida ay noo geliyo waxa kale oo aan soo wadnaa barnaamijyo aad u xiiso badan ay marka nala soo halkaan nala soo isku day barnaamijka faafisiin meel kasta oo aad geysiin dhibka waxaa jira dhibka ku haysto dhib walaalka kale oo u haysta jira oo maanta aan barnaamijka la soconin meel dad u heshanaysan marka isku daasay in la wadaagto si uu anaga nala soo wadaago sida dib isla xaliyo sababtoo dhibkaada يدك ولا كمان هالسمو. ما كسودين أصلا لو ده تو بالله توفيق والسلام عليكم.